Waa maxay labada caqabadood ugu waaweyn oo ka hor imaan kara marka aad luqadda Ingiriisiga baranayso? Sidaas looga gudbaa labadaas caqabadood saa loo xalliyaa marka haddii aad iskuulo badan aaday, waqtiyo badan geliday, meelo kala duwan isku dayday inaad luqadda Ingiriisiga ku barato, waxaasoo dhan ay ku shaqay waayeen. labadaas caqabadood oo soo socota midkood ayaa ku haysata ama labadaba waa ku haystaan. Marka su-aalahaas kor ku soo xusay ayaan uga bogan doonaa videogan gaaban oo idinku soo socda. Soo dhawaada, halka aad videogan ka daawanaysaan waa Dr. Hashi Network YouTube channelka aan ku leeyahay. luqadda Ingiriisiga si guud haddaan usoo koobo, luqadda Ingiriisigu waa luqad very universal ah oo maaragta adduunyadoo dhan sida aad ka warqabtiin looga hadlo meelo badan oo adduunka ah, welibana dadka hadda ku hadla oo ay ka badan yihiin dadka native-ka ah oo u dhashay, waxaa ka badan dadka ku hadla oo ku communicate gareeya oo caalamka jooga oo bartay. taas macnaheedu waxay tahay adduunka dadka ku hadla dad bartay hadday u badan yihiin, adiguna waa bara kartaa, aniguna waa bara karaa, cid kasta waa bara kartaa. way fududahay haddiiba dadka hadda ku hadla in ka badan kala bar ay yihiin dad bartay. kasakow wadamada xataa maaragtay iisheeg westiga ama English speaking countries-ka, wadamada kale xataa oo aan maaragtay luqadda Ingiriisigu first language aysan ka ahayn, researchada ka soo baxa iyo cilmi baarista ka soo baxda, hadday tahay kuwa medicine la xiriira, hadday tahay social science, hadday tahay epidemiology iyo statistics, gebigood waxay ku soo baxaan 90% iyo ka badan aan dhihi karnaa qiyaastii waxay ku soo baxaan luqadda Ingiriisiga. Why? Because researchka professorada iyo dadka sameeyhaya iyo cilmi baarayaasha iyo macadka sameeyhaya laftoodu waxay rabaan in adduunka dadka ugu badan inay kala gaarsiiyaan findingkooda iyo waxa ay soo heleen iyo discoverygooda. si ay u gaarsiiyaanna waxay isticmaalaan luqadda Ingiriisiga. taas marka waxay ku qasbaydaa dad badan oo caalamka jooga si aad maaragtay aad ula socoto waxa socda, waxa soo baxay, field kasta iyo profession kasta oo aad ku jirto, si aad ula socoto waxa ka socda inaad luqadda Ingiriisiga taqaan. marka taas waa si guud. labada shay marka aan usoo gudubno caqabada kugu noqon kara amase ku haysta oo kaa hortaagan inaad luqadda Ingiriisiga barataa waxay yihiin: kow, commitment, ka go-naasho, inaysan ka go-nayn oo aadan weli go-aansan oo aysan si maaragta dhammaystiran aadan u go-aansan oo commitment aadan ula imaan, waa faahfaahi doonaa. iyo midda labaad oo ah poor strategy ama strategy la-aan, macnaha habka aad u baraydo oo aad u approach garayhaydaa qaldan iyo meelaha aad wax ka bilowdaa qaldan. labadaas shay marka aan furfurno xoogaa sii faahfaahina labadooda. commitmentigu ama ka go-naashuhu waxa weeye: kow, marka aad baraydo luqadda Ingiriisiga waa inaad isweydiidaa why. kasakow inay universal to adduunka oo dhan ku wada xiriira, why adiga khaasatan adiga maxay tahay sababta aad u baranaysaa. arrinta inaad isweydiidaa waa muhiim, sababtoo ah mar kasta oo ama aad ka caajisto ama caqabada kaa hor yimaadaan, waxa tuulka aad isticmaalayda waxa weeye why-gaagii ama sababtaadii aad u bilowdaa ku hor imaahayda. marka wixii markii ay sababtii aad u bilowday aad taqaano oo ay kuu define garaysan tahay, caqabad kasta waa jeeraydaa, dadaal kasta aad gelinaysaa, macnaha kama maaragta niyad jabayid. kow, tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad jaamacad aado amase college aado, adigu waxbarasho midda hadda aad joogto ka sarreyda, dugsi sare aad ka baxday, waxaad rabtaa inaad kura kasii aado amase dugsi sare laftiisa aad rabtaa inaad gasho. adigu waxaad rabta noqo, engineer noqo, dhakhtar noqo, pilot noqo, waxbaad rabtaa inaad barato, maaragta business person noqo, waxaa rabta noqo, waxbaad rabtaa inaad noqoto. si aad waxaas u noqotana luqadda Ingiriisigu furay u tahay, mase waaba manhajkii aad wax ku baraydaa ku baxaya inteeda badan. marka macnaheedu waxa waaye career-kaaga ama noloshaadii ama mustaqbalkaagiya inta badan ku xiranba inaad meeshan aad luuqan u marta oo ay luuqadii tahay maaragta waddadii loo marayo. taas marka waxay kugu qasbaydaa tusaale ahaan waxyaalo kale oo badan iyo mashquul badan iyo hadday kusoo galaan oo luuqadii kaa soo galaan markii aad baraydii iskuulka, waxaa ku hor imaahayda wixii dhammaa iyo wixii aad dhisangareyhayda iyo futurkii aad ka shaqeyhayda iyo wixii hamigaagii iyo dreamkaagii ku hor imaahaya oo ay waddadaan ku xirneed. marka taas waxay kugu dhiirigelin inaad waddo kasta u jeexdo, aadan ka hakan, aad kusii socotay kugu dhiirigelinaysa. marka commitmentiga, ka go-naashaha si aad ula timaadood committed u noqoto, waa inay kuu qeexan tahay sababta aad rabto inaad luqadda Ingiriisiga u barato. tusaale ahaan weriye aad rabtaa inaad noqoto, weriye si aad adduunka maaragta tusaale ahaan channel Soomaaliya inaad ka shaqeydo, aad weriye ka noqoto ama TV adigu samaysataad rabtaa. si aad usoo gudbido culumtaas waa inaad website-yada kale iyo adduunka wixii lagu daalacay inaad maaragta soo dhegaydo oo soo akhrido oo waxa isu keento. marka macnaheedu waxa waaye ma noqon kartid waaye weriye macna haddii aadan luqadda Ingiriisiga aadan aqoon. macnaha tusaalan kuugu soo qaadanaya,
dhakhtaraad rabtaa inaad noqoto, daawooyinka iyo medicinka iyo culumta maanta socoto dhan luqadda ingiriisiga ku qorantay intooda badan, gebigood ma dhihi karno, wadamo waxaa jira waxooda si gooniya ugu qorto luqadahooda. marka iyo jaamacaddii aad sii maraydo dhakhtarnimada aad kasoo barayda lafteeda wixii oo dhan, marka tilaabadii kastood qaadayda luqadda ingiriiska, ama se opportunity shaqaad rabtaa inay kuu furto, hay-adaad rabtaa inaad u shaqaydo, xafiis dowladeed rabtaa inaad ka shaqaydo, waxaasoo dhan kambaniye kale rabtaa inaad ka shaqaydo, luqadiiya caqabad kugu noqaydo. marka waa waygaagii, waa sababtaadii. waxyaalahaas oo dhan aan kuusoo sheegay waxay kuu noqon karaan reasonka aad rabta inaad u barato. reasonkaagii markuu kuu caddaado waygaagii, politician siyaasi aad rabtaa inaad noqoto tusaale ahaan, yacni adduunyada iyo stageyada adduunka ka hadlo oo dadka la hadlo, makarafoonna qaato, maaragtay khudbada jeediyo, caalamka shirar caalamiya ka qayb galaad rabtaa inaad noqoto. iyaysan haddeer noqon, ilaahuma 20 sano kadib rabtid inaad noqoto, luqadda ingiriisiga muhiimay kuu noqoyda. xataa markii la joogo waddanka Soomaaliya oo aan ognahay inaan ingiriisku xataa second language ka ahayn, qofka luqadda ingiriisiga yaqaana markuu shaqada raadsado waa ka opportunity badan yahay ama ka fursad badan yahay qofkaan luqadda ingiriisiga aqoon, iyadoo xataa waddankan ingiriiska looga hadlay. sababtoo ah xafiisyadaasaad ka shaqeyhaydaa in one way or the other, adduunka xiriir kale la leeyihiin, ama badeecaha dirsadeen, ama haddii ilaahay kuu roon yahay warqada ha qorteen, ama NGO ha ahaadeen, si unbaa luqadda ingiriisku meesha usoo gelayda. marka waa inaad fahamtaa inay muhiim tahay halkaas, sababahaagii oo waygaagii mid ka mid ahayna noqon kartaa. marka taas waa commitmentigii, wax markay ka go-naanshihii la timaado way kuu dhaqaaqayda. laakiin haddaad og tahay inay si guud isaga fiican tahay luqadda ingiriisku in la barto, ay maaragtay luqad universal tahood aerobooradaas iyo dunyada inaad ku marmarto ay rabto, taas macnaha sabab adag noqon maydo. qof saaxiibka ahu markuu baraayo ama dadaad istaqaanin ama xaafadda dadka kula degan ay buuq qaataanna waa ka daba qaade, markay ka tagaanna waa ka tegay, ama markay kugu adkaata waa isaga tegayba. sababtoo ah sabab weyn oo markii hore ka dambeyda aas wax kugu qasbaya inaad barato ma aysa jirin, oo ka go-naashahaas muusa jirin. marka taas wey markaan commitmentiga haddaan soo gaabiyo waa midkaas. strategigaan u nimaadna marka waa qodobka labaad. strategigu marka isagaan laba usii kala qaabayna. mid waa problem iskuulka ka jira, iskuulka aad ka baranayso aan curriculum lahayn. curriculum maxaa loola jeedaa? meeqa buugaa la akhrinayaa, meeqaa laga bilaabayaa, bishiiba ardayga meeqa cashara laga rabaa inuu qaato, bisha labaad xaguu joogaa, bisha saddexaad garaamarka sidaan haddii lay kuu roon yahay ilaa 6 bilood xaggaa laga rabaa inuu ardaygu gaaro. macnaha iskuulku waa inuu curriculum degsan yahay, buugaagta casharada iyo buugaagtii iyo ay maaragtay ay u degsan yihiin. curriculum leera macnaha waa inuu system degsan yahay, ee aan macallinku maalintaas wixii kusoo dhacay iyo journaal uu soo daabacay uusan sabuuradda kuugu xarxariiqin. curriculum leera kaas waa iskuulka. midka labaadna waa adigu kaa imaanaya, sababtoo ah macnaha iskuulka markaad tagto sideeda oo weliba luuqad markii ay noqoto waxaa la baranayaa 60% ardayga ka timaada adigay kaa imaanaysa inaad barato, 40% iskuulkay ka imaayda ama macallinku instruction ku siinaya, aas-aasuu ku siinaya, foundation ku siinaya, basicgii iyo sentenisadii iyo grammarkii. laakiin waxaas qofka laga raba inuu practice gareeyo waa adiga, qofka laga raba inuu wax badan soo dhageysto waa adiga, qofka laga raba inuu ku hadlo dad la communicate gareeyo oo maaragtay uu dadka kula soo sheekaysto waa adiga, qofka laga raba broadcastyo iyo idaacado kala duwan inuu soo dhageysto waa adiga, qofka laga raba inuu buugaag akhriyo hadday noqon lahayd fiction iyo non fiction iyo story yaryar iyo sheekooyin waaweyn iyo news article soo baxay iyo buug caadi oo la qoray iyo mid ganacsi. adigu intaasoo waxoo la qoraa jirtay. qofka laga raba inuu soo akhriyo oo maaragtay erayadii iyo vocabulary inuu soo barto, self study soo samee waa adiga. marka adigii haddii aad aaminsan tahay in macallinka markaad tagto galaaska xaadirto arday fiican inaad tahay oo aan goyn oo casharada homework ka soo shaqeeyo oo galaaska dhexdiisa presentationka jeediya, intaas inay kugu filan tahay, you are wrong. taas kuguma filla, that's not enough, absolutely it's not enough. waxaa lagaa rabaa inaad waqtigii iskuulka tusaale ahaan dad 1 hour gelido, waxaa lagaa rabaa guriga inaad 2 hour ku gelido study. marka taas marka waa sidaasoo haddii ilaahay kuu roon yahay waxa waaye waa muhiim in aad strategigaaga uu qaldan yahay haddii aadan sidaa u fahmin oo aadan waqti u samayn iyo timetable u samayn. 2 hours aan maanta gelinayaa, 3 hours aan gelinayaa, asbuucan weekendigan intaasoo canjaladoodan daawanayaa, idaacadaasaan daawanayaa, youtube channelkaasaan ka daawanayaa, dadkaasaan kula sheekaysanayaa, buuggaas yaraan akhrinayaa. haddiusan adiga aysan habkaas ama strategigaas aadan haysan, macnaha waxba kuu kala soco maayan. haddii iskuulka curriculumkiisa uusan isaguna hagaagsanayn, macnaha waxba kuu kala soco maayan isagana. marka strategiga ama qaabka loo baranayo, tusaale midii iskuulka haddaan gadaal ugu laabano,
in badan waxaad aragtiin in qof oo 6 bilood ba iskuulka dhigayna ku dhahaa 12 tennis oo Ingiriiska aan bartay oo aan soo dhameeyo soo xifdiyey. Waa qalad, wax macnaha adduunka ka shaqeeya maahan. Looguma talagelin qofku 12 tennis inuu hal mar barto. Qofku markuu basic yahay oo aas yahay curriculumka waxaa loogu talagalay inuu kala fahmo 6 bilood ugu horeyda waxaan ma pastiya wax laga soo gudbaya, ma present wax hadda taaganaad laga hadlayaa, ma future wax dhici doono soo socdaa laga hadlayaa oo iyo prediction laga hadlayaa. Marka saddexda ayagaasaa tennisyadu kasii kala baxbaxaan oo 12 tennis oo lagu sheegay ayagaasay kasii kala baxbaxaan. Marka waxaa loogu talagalay mar walba basic grammarkaaga iyo vocabularieskaaga iyo fahamkaaga guud oo comprehensionkaaga inuu soo kordhaba in mid lagu soo dhex tuuro. tusaale ahaan markaan jaamacadda sanadka 3aad dhigay weli English tenniska lay barayo mida hadba la soo dhex gelinaya hadba mida lagu soo dhex tuuray. Marka waxaa laga yaabaa dugsiga sare qofku markuu dhameeyo inuu 6 ama 7 kaliya yaqaana laga yaabaa, xataa wadamadii luqadda Ingiriiska looga hadlayo native-ka ah macnaha inuu qofku waxa laga yaabaa uu 6 ama 7 bis yaqaano isagoo intaas 12 sano wadanka wax kusoo barayay u yaqaano 6 ama 7. sababtoo ah waxaa laga fogaanayaa qofku inuu inta xifdiyo markasta uu wax qormaago uu maaragtay preoccupied inuu ku noqdo sentencekan isticmaalaa kan wuu qaldan yahay kaasaa loo isticmaali jiray ma present continuous ma past continuous ma simple present or this one waxaasoo inuu ku fakeraa la diidaya. waxaa la rabaa inay si natural inay u timaado oo hadba mid la baro oo hadba laba la baro oo akhriska badan oo uu akhrinayo iyo bugaagta dhan oo uu akhrinayo uu ka fahmo sida ay u shaqeeyaan iyo sida ay sentence structure-ka iyo context-ga ay ku jiraan. midba uu mawduuc ku yimaado oo suu arkayo oo is yiraahdo qofka waa maxay tenniskan mid hore u aragtay maaha. tartiibta inay ugu soo socotaa loogu talagalay. qof beginner oo 6 bilood ugu horreeyay ku jiraba looguma talagelin inuu yiraahdo waa dhameeyay 12 tennis aan dhameeyay inuu yiraahdo looguma talagelin. waa wax waqti dheer socda oo markastoo maaragtay fahamkaaga Ingiriisku uu sii siyaado waxaa loogu talagalay inaad mid lagu soo daro mid barato qaarkood self study inaad ku barataa loogu talagalay laakiin wax la xifdiyo maaha. why because daa xifdido analysis paralysis aa kugu dhacaya markastood wax qor maagta stack aad noqoyda ilaa waxaad ka fakeraydaa tenniskaad isticmaali lahayd ka fakerayda si taa looga fogaado. marka wadamada oo maaragtay wadankan hadda sida Canada oo kale oo meeshan anigu aan iskuulaadka ka dhigto kala hadlayo xoog badan lama saaro tenniska iyo meeqa tennisa la qaadanaya xoog badan lama saaro. waxaa xoog badan la saaraa comprehensionka iyo in qofku soo fahmo markaas tartiiba loogu soo dardaraa hadba midaa lagu soo dhex tuuraa hadba midaa la soo geliyaa. sidoo kale maskaxda biniaadankiina oo dadkiina caafimaadka yaqaana iyo human anatomy iyo waxa waaye neuro anatomy-ga yaqaana maskaxda biniaadanku waxaa jirta waxyaalo la yiraahdo subconscious oo memorization. waxaad xifdaydaa jira adigoon ku talagelin inaad xifdido waana waxa ugu fiican waxa aad xifdido adigoon ku talagelin inaad xifdido. tusaale ahaan qoraalaad maanta akhriday it resonate maskaxdaada kama baxaayo waa ku jiraa. markaad wax badan akhrido adoon ugu talagelin inaad xifdidaad si naturally aad u xusuusanaysaa wixii. dadka bugaagta inta badan akhriya marmarka qaar haddaa warqad English ku qoran yahay u keento ayagoon aqoon waxa ka qaldan oo kuu sixi karin waxay ku leeyihiin Englishkan wuu qaldan yahay waxbaa ka siiya it doesn't sound good. why because bugaag badan ay akhriyeen wax badan ay arkeen sentence structure badan ay arkeen fragment sentence ay arkeen kuwa toosan ay arkeen kuwa short iyo report ay arkeen marka way fahmayaan. marka saasaa looga fogaadaa maaragta in la xifdiyo leera maanta 200 erayaan soo xifdiya 20 erayaan soo xifdiya maya context wuxuu ku jiraa lagu akhriyaa waxaasaa lagu bartaa. sababtoo ah hal erayo Ingiriis ah 3 macno loo isticmaalaa hadba waxay ku xiran tahay meesha uu ku jiro iyo tuducda iyo paragraafka uu ku jiro iyo topiga uu ku jiro ku xiran tahay intaasoo mashruuca loo isticmaalo. marka haddaad xifdido mar walba halkaas waxaad u isticmaalaya wixii kalood ku aragto dhan qaladaad u qaadanaysaa ama se meelo kale oo munaasib ku ah aad u isticmaali weynaysaa. marka lama xifdiyo Ingiriiska waa la fahmaa akhriska badan iyo fideogii hore barashada Ingiriiska part 1 fideogii hore haddaadna soo daawanan waxaan uga hadlay haddaad meel Ingiriiska looga hadla joogto sida ay tahay inaad u practice garaydo haddaadan joogin meesha kale oo ay tahay inaad ka fahanto kaas fideogaas gadaal ugu laaban maayo waa YouTube-ka ku jira. laakiin kan waxoogaa maaragtay waa qoraalka waxaan inta badan aan midkaan rabaa inaan uga hadlo iyo si guud ba inaan uga hadlaba. marka part 1 sideedana Ingiriiska barashada markii laga hadlayo Ingiriiska laba loo qaybiyaa. qayb waa
listening iyo speaking oo isku jirta. qaybtaas waxaa la isku yidhaahdaa comprehension, waa faham qaybtaas. qaybna waa reading iyo writing, qaybtana waa analytic waay. marka inta badan waxaa fudud ku hadalka ingiriiska fudud. ku hadalka ingiriisku wuu ka fudud yahay akhriska ingiriiska, sababtoo ah akhrisku waa analytic. analytic maxaa ula jeedaa? markaad aad qoraydo, qoraalka iyo akhrisku inta badan way isku xiran yihiin, oo haddaadan maaragta si fiican wax u akhri aqoon, si fiicanna uma qoranaysid. marka analytic waxaa loola jeedaa waxaad ka fakeraydaa, okay, grammatical sax ma yihiin waxaad qoraydaa. word of choice, eragaad isticmaalada ereyga ku habboonaa ma yahay, sababtoo ah science-ka eraya loo isticmaalaa jira, social science kuwa loo isticmaalaa jirta, political science kuwa loo isticmaalaa jirta, journalism kuwa loo isticmaalaa jirta, waxyaalo badan oo kala duwanaa jirta, caafimaadka kuwa loo isticmaalaa jirta, psychology-ga iyo mental health-ga xataa kuwa loo isticmaalaa jirta. marka waxaasoo dhan weliba marka aad si professional aad wax u qorayda waa inaad ka fakertaa. word of choice aad ka fakerayda, eragaad qaada laheyd. sentence structure aad ka fakerayda. tusaale ahaan dadka medical reportka markuu qofku qorayo kale, waa la ogol yahay sentence short inuu isticmaalo, laakiin markuu warqad official oo ama business ama haddii ilay ku roon yahay dowlad loo qoraayo ama hay-ad loo qoraayo, waxyaalahaas markuu qoraayo waxaa laga rabaa inay haddii ilay ku roon yahay ay professional tahay, sentenceyadeedu dhaadheer yihiin, waxa waaye ay aad u habaysan tahay structurekeedu. laakiin medical report oo kale, tusaale ahaan hadda haddaan raajo fiirinayo oo aan qof lafihiis fiirinayo oo kale, waxaan iska leeyahay isheeg the alignment is within normal limits. the alignment is normal. The overall density is adequate. density-ga ama cufnaantu waa enough, intii la rabay weeyaan leh. waa wada sentence yar yar oo gaagaaban. there is no abnormality. ma fahanti? waxyaalahaas yar yar oo gaabana isticmaala. medical reportka waa la ogolay sentence yar yar oo gaagaaban inuu qofku isticmaalo, laakiin marka ay noqoto si professional oo isheeg persuasive writing wax la yiraahdo isticmaalaya, tobigyo kale uga hadli doona, way ka duwan tahay marka aad report yar qoraydo. marka waxaasoo dhan fahamkoodii lagaa rabaa oo aad isu geygeydo. isheeg haddii ilaahay kuu roon yahay structurekeedii ma gaaban tahay ma dheer tahay, word of choice-ka waxaasoo dhanaa lagaa rabaa. that's why qoraalka ingiriisku uu uga adag yahay mar walba ku hadalka. laakiin ku hadalka sidoo kale qoraalka waxaad la hadlaydaa qof aan kula joogin. qof aan kula joogin aad la hadlaydaa, waxaadna ula hadlaydaa sidii qof kula jooga. qofkii hadduu eraggii fahmi waayo, jaanis kale ma haysatood ugu soo celido, warqadii way baxda oo saa inta u fiiriya maxaa loola jeedaa yidhaahdo, amase wixii unprofessional ay u noqdaan, meel laga soo celiyaa ma jirto, waa tag. laakiin marka aad communicationku uu yahay wada hadal oo qof ku hor fadhiya aad la hadlaydo, hadduu fahmi waayo erag kale aad u isticmaalaydaa, macnaha waxbaad isku dardaraydaa, dhinac kale aad ka soo gelinaydaa, inuu fahmiya in kale wuu kugu soo celinaya, waa ka jawaabaya. saas waay uu fudud yahay ingiriiska ku hadalkiisu. keliya wuxuu kaaga rabaa confidence inaad la timaado iyo inaad practice garidood ku celcelido. grammar lagama fakaro, vocabulary-gan kan iyo kan ka bedel lagama fakaro. wixii maaragta aad dhihi kartaa la yiraahdo waad ka fahantay, yani wrong or right ma jirto markii lagu hadlayo ingiriiska. laakiin markii la qorayo, yes, shuruucaa la raacayaa, grammaraa la raacayaa, sentence structurea la raacayaa, word of choice la raacayaa, contextaa la raacayaa, maxaad ka hadlayda, topigan muxuu ahaa. marka videoga waa idinku dheereeyey. haddaan dib ugu soo laabano, maaragtay topigeygu wuxuu ahaa labadaas shay inaad iska saxdo. ii sheeg commitment inaad la timaado markaad luuqadda ingiriisiga baraydo, oo dib isu xisaabido maxaad u barayda, sababtu waa maxay, iyo strategy saxa inaad la timaadood fahanto inaysan macalinka keliya aysan ahayn 60% adiga lagaa rabo. adiguna waqtigaad iyo saacadihii aad geli lahayd iyo sidii aad u geli lahayd iyo meeshii aad ka bilaabi lahayd in strategy step by step iyo balaanka aad ula timaado. iskuulkana aad choose gareydo iskuul curriculumkiisu uu fiican yahay, iyo maaragtay sida ay ardada wax u baraan iyo stepska ay raacaan iyo dadka wax ka bara oo barayaasha qualificationkooda iyo waxaas inaad fiirido. iskuulka laftiisa aad maaragtay sida u fiiridid. marka labadaas shay aa muhiima, commitment iyo ka go-naasho. waxa la yiraahdo inay kaa go-an tahay inaad baratay, sababta aad rabto inaad u baratay inaad og tahay, iyo inaad habkii saxda ahaa ama strategy saxda ahaa intaa markaa isku soo darto, waxaan dhihi karaa 1 sano luuqadda ingiriisiga waa ku baran kartaa. haddaad beginner tahay oo aad maanta bilaabaydo, 1 sano waa ku baran kartaa luuqadda ingiriisiga. waa ku baran kartaa, maxaa ula jeedaa, intermediate noqon kartaa qof day to day operationkiisa ku fushada, aan loo turjumin, warqadihiisa ku qorta, emailkiisa ku dirta, text messageka dadka kula xiriira, waxyaalahaasoo dhan qof awood u lahaad noqonaysa. kadibna advance garaynteedu wayba fududaa. markaad intermediate gaarto, mar walba way kuusii fududaa doontaa oo adigaaba fahmayidba sida loo sii hormariyo.
high school aad ka baxay weli waa sii baranaysaa jaamacadda heerka koowaad galay weli waa sii heerka labaatan markaad gasho marnaba dhammaahayda barashadeeda laakiin already wixii baahidaada dabooli karay waa soo gaartay ma fahamtay marka halkaanan fiidiyoga kusoo gabangabeynayaa aad iyo aadaad u mahadsantihiin daawashadiina iyo sidaad fiidiyoda u laagaraydeen iyo commentigiina iyo feedbackiina fiidiyogii hore barashada ingiliiska feedback badanaa kasoo laabtay soo badi fiidiyoda noocaana waa fiican yahay fiidiyogan iyo talooyin aad iisoo jeedaydeen inaan part 1 iyo part 2 part 3 inaan kasoo sameeyo waa recommendation dhinaciina ka yimid uu ahaa marka engagementigaas iyo maaragtay feedbackgaas aaday wax badan iga caawinayaan marka waa ku mahadsantihiin dadka subscribe-ka oo YouTube-ka ku jira hadda 2,000 ay kor u dhaafeen waa mahadsantihiin waqti yar oo kooban haddii aadnan idinka ahaa lahayn oodnan like garay lahayn fiidiyogana meeshaas lama gaarin marka 100% waa mahadsantihiin sidoo kale haddaad fiidiyoganu isagoo maaragta goosgoosa uu tiktoka kaa soo gaaro pagean isaga laftiisa ku leeyahay fiidiyoga oo full ah wuxuu ku jiraa YouTube channelku ku jiraa YouTube channelkaad ka daawo kartaa sidoo kale wixii resources oo aan helo oo hadda fiidiyogii hore oo barashada ingiriiska linkiyaan soo dhigdhigay iyo meelo kale wax laga barbaran karo wixii buuga oo aan arko iyo wixii free maaragta apps iyo waxyaalahaas oo laga barbarto iyo xataa channel kale practice ku fiican haddaan arko iyo waxaas oo dhan linkigan soo dhigaya marka mar walba YouTube-ka ka daawo aad iyo aad u mahadsantihiin isku soo noqosho dambe oo xiisa leh asalaamu calaykum